saddex qof oo mid Soomaali ah ayaa ku dhaawacantay dab ka kacay xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee Mevel magaalada Johannesburg. dabkani ayaa waxaa la sheegay inuu ka bilowday ka gadaal markii heater ama dab dhaliyaha la isku kulay xilliyada qabowaha looga dhex tagay dukaan Soomaalida ay ku lahayd xaafadda Mevel halkaas uu dabka ka bilowday. bildinka ayaa dabku waxa uu gaaray waxa uu ku ekaaday oo kaliya dukaankii uu ka kacay iyadoo dabdamiska wadankani ay u soo gurmadeen markii uu dabka bilowday. saddexda qof ee Soomaalida ay dhaawacantay ayaa waxaa la sheegay in uu naqaska ku dhagay ka gadaalna loola cararay isbitaalka. si kastaba ha ahaatee waa markii saddexaad uu dab ka kaca suuqa Soomaalida ay ku badan tahay ee magaalada Johannesburg xaafadda Mevel iyadoo la xasuusto horaantii bishiina dhaaftay inuu dab baabashay Kashinkeri ama suuqa Soomaalida u soo tukaamaysi tagto oo lagu magacaabo Salaaman Kashinkeri. haddaba mid ka mid ah goobjoogayaashii ku sugnaa goobta ayaan wax ka weydiiyay sida ay wax u dhaceen. waan gartay waan gartay waxa ii muuqda hadda dhowr qof oo dhaawac maxaa dhaawacay dadkani waa dadkii isku dayay inay damiyaan dabka khibrad aadna uma aysan lahayn sida wax loo damiyo marka qiiqii iyo baalka isticmaalayeen si waxaas ku darsamay waan gartay waqti Ramadaan oo gujaar ka Soomaaliyeed marka xamalaynaaya neefta qof dadka u dhigtay sal qiyaas waan gartay dad kale wax ku noqday ma jiraan dhimasho ama dhaawac dhaawac wax dhimasho ama gaarin ilaaha sahlay hantidii meesha ku jirto ma baabaaday ma soo la badbaaday dareemi karnaa alaabta u badneed alaab coosh u badneed inta badneed dab baabiyay inta kalena biyihii lagu shubaa si baabinayo xamalaynaaya qasaaro kulay dukaanka bankiisa waa soo gaartay aad baa mahadsantahay. Abdixakiin Ibrahim Cawaale TV ga Hon Cable xarunta ganacsiga dalka Koonfur Afrika magaalada Johannesburg.